iyadoo dhawaan madaxweynaha dowladda Jubbaland uu magacaabay guddiga gurmadka abaaraha ayaa qayb ka mid ah guddigaas oo la yiraahdo guddiga wacyigelinta iyo saxaafadda oo soo booqday xarunta Jubbaland TV waxa ay sharaxeen inta ay la egtahay abaarta ka jirta deegaanada Jubbaland iyo sida loogu baahan yahay gurmad degdeg ah. siyaasiga Maxamuud Sayid Aadan ayaa sheegay in abaarta ugu daran ay hadda ka jirto deegaanada uu maro webiga Jubba halkaas oo ay ka jirto biyo yaraan uu webigu sameeyay iyo meelo kamid ah halka uu webigu badda kaga darsamo oo ay baddu ku soo caariday webiga. waxaa jirtay in madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam uu qabtay guddiga gurmadka abaaraha kadib markii xaaladda la socotaan abaarta baaxadeed intay leegtahay maalmo howlgal ah kadib waxaanu garanay guddigaas inuu isballaariyo oo ay maaragtay xubnihii markaa madaxweynuhu dekreetada ku soo saaray ay abuuraan guddi hoosaadyo wadatashi yimid darteed xubnahaas oo la gartay in guddiga la ballaariyo laga dhigo 21 maanta guddiga gurmadka abaaraha ee Jubbaland wuxuu ka kooban yahay 21 waxaa kaloo guddigan iyo beesha caalamka wali aad iyo aad ayaan ugu xunnahay jawaab macno leh noogama imaanin xagga beesha caalamka iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo ka wakiila ummadda Soomaaliyeed wakiil ugu ah waajibaadkeedana uu yahay in xaaladdan oo kale markay dhacdo ayada capacity-geeda ama meeqaamka dowladda dhexe in lagu howlgalo aad iyo aad baan ayadana ugu rajaynaynaa walow ay la soo daaheen inaynu jawaab ka helno. beesha caalamkana waxaad moodaa in maxay ahayd markii ay xeer iyo fandhaal kala dhacaan ay imaan doonaan oo dhihi doonaan haddaan wax qabanayna. Maxamed Cabdi Nuur iyo Xirsi Jaamac ayaa dhinacooda hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay gurmad degdeg ah waxaana ay sheegeen in hawlaha ay wadaan guddiga abaaruhu ay meel wanaagsan marayaan ayna qorsheynayaan sidii kaalmo loo gaarsiin lahaa dadka abaaruhu ay halakeeyeen. marka koowaad waxaan leeyahay inna macal usri yusra culays kastoo dadka haysta muslimiinta ahi ilaahay wuxuu ballan qaaday inuu yusri ka dambeyn doono haddii hadda abaara iyo colaad maxaan ku dhahay inay haystaan waxaa ilaahay ka rajaynaya subxaanahu wa tacaala inuu yusrkii ka dambeyn jirin oo yimaado oo ah roobab iyo maxaan ku dhahaa nabad aan nimankaan dhibka badan aan iskaga qaadno. waxaa intaa jirta waxaani fariin uu ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka ku xusuusinaya inay isaga usoo laabtaan badana qaxtiga iyo abaaraha iyo colaadaha waxa keena waxa mimba ka sameeyay wax kamida oo ay gacmaheenu samaysteen. gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha ahna xubin kamid ah guddiga abaaraha ee Jubbaland Shaafi Raabi Kaahin ayaa gabagabadii baaq u diray ganacsatada oo uu sheegay inay ka qayb qaataan gurmadka abaaraha. waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto fursadan annaga rugta ganacsi ahaan Jubbaland Chamber of Commerce waxaan rabnaa inaan wargelino ganacsatada wax haysta inay aysan waxba la hari doonin hakrana doonin laakiin waxaan ku dhiirigelinaynaa inay reer Jubbaland qof garab istaago international community inta wax laga sugayo ama dawlad federaal wax laga sugayo dadka qaarba waxba ay ictimaadaan anu shakhsi ahaan waxaan qabaa inay dadka reer Jubbaland ay garab siiyaan oo gacan siiyaan oo qoys gacan siiyo ganacsatada gaar ahaan waxaa la marayaa marxaladda waqtigii uu qofka waxaystaay uu dadkiisa wax tari lahaa waxaanan rajaynayaa taas inay jawaab degdeg la bixin doono guddiga aan qabanay iyo guddiyadaasina arrintaas ku howlan yihiin dabadeedna guddiyadaas saddexdaa waxay qiimeynayaan baahida hadba meesha u daran iyo waxa la gaarsiin karo. waxaa kaloo ugu baaqaynaa jaaliyadahanaga dibadda jira reer Jubbaland guud ahaan iyo gaar ahaanba dadka gudaha jooga inay ka qayb qaataan gurmadkaas ayadoon filayo inay guddigu ay shaacin doonaan akawnada lacagaha lagu ridi doono. bangi salaama account laga sameeyay dahabshiil baa laga sameeyay xawaaladaha kala qaar laga sameeyay EV Plus bay dadku qaar isticmaalaan ayagana waa la sameyn. waxaan rabnaa inay inagu aynu isla gurmano aan isu gurmano dadkeena badbaadino.
deegaano ka tirsan Jubbaland ayaa waxaa ka jirta abaar culus oo saameysay dadka iyo dunyada taas oo loo sabaynayo xilli roobaadka oo soo daahay iyo isbeddelka cimilada adduunka.